Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha khiyaarta asxaabta aan jeclahay ee janaalkeena waanay wacyigelin ku xiran walaalayaal soo dhawaada insha raxmaan. Dhammaan walaalahan ugu cusubna soo dhaweynaa xalinay soo dhawaada. Adiga haddana daawanayna walaalaha deetaa markii ugu horeysay waa janaalkeena daawatid waxaan ka codsanaa waxay tahay inaad janaalka subscribe noo dhahdid gambaleelkana ku sii dhufsid insha Allah si mar walba wax cusub aan soo dhigno ay ku soo gaaraan aad iyo aad u mahadsan tahay. maanta insha raxmaan horta waxaan ka hadli doonaa waxay tahay ama maalinta insha Allah aan ka hadli jirnay qisas diiniya maanta insha Allah qisadan soo qaadan doona waxa ku saabsan tahay ereyga insha Allah oo aan ognahay macnihiisa iyo waxa uu ka tarjumayo haddii aan nahay ummad muslimiin ahna mar walba ma aragtaa markaan arrin go'aansanayna ama markaan ma aragtaa wax inaan sameyno aan rabno mar walba nala amray ma aragtaa inaan dhahno ereygaas si arrintaasi ilaahay idinkiisa ay u hagaagto marka ereygaas aan rabaa maanta insha Allah qiso yar ku saabsan oo rasuulna Maxamed sallallahu alayhi wasallam ka sugnaatay in idin la wadaago qisadaas waxay ku saabsan tahay waxay tahay horta soo degitaankii suuradan loo yaqaan suuratul kahfi ee maalin walba jimco ah aan aqrinay inta ilaahay sunan siiyay waxaa la dhahaa marka nimanka loo yaqaano kufaar quraysh oo ahaa niman ma aragtaan ognahay dhibkooda iyo sidii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam u dhibi jireen baa waxay damceen markii ay dacwadan arkeen inay faafayso diintaana aysan ahayn mid hakanayso ayaa waxay damceen waxay tahay inay nabiga sallallahu alayhi wasallam xujiyaan ayagoo rabi inay ma aragtaan nabiga xujo u soo raadiyaan ay waxay u tageen la dhahaa nimanka loo yaqaano maxay heetoole yuhuudi magaalada madiina deganeed markaas waxay dhaheen maxay heetoole warnimayahow waxaan rabnaa inaa maxamed xujeyne waxaan ku xujeyno nasiya markaasna sida ma aragtaa qisada qisooyinka macruufka ee suuratul kahfi kusoo degtay ma aragtaa saddexda su'aalood ay weydiiyeen waxayna ka soo qaateen waxay tahay yuhuudaas oo soo sheegtay reer Quraysheed markaas reer Quraysheed soo qaateen saddexda su'aaloodna waxay ahaayeen waxay tahay waxaad nooga warantaa niman maxay heetoole la waayay ama niman dhalinyaro ahaa oo la waayay meel cirbi jaandhigeen meeshii ku dambeeyeen arrintaas nooga waran waxaa kaloo nooga warantaa waxay tahay maxay heetoole qisada labaad oo ah maxay heetoole ruuxda nooga waranayeen ruuxda tii saddexaadna waxay ahayd tan saddexaadna waxaa waaye maxay heetoole waxay dhaheen waxaad nooga warantaa nin adduunyadoo dhan min mashriq ilaa maqrib isku soo maray ninkaasoo ahaa dul qarnayn oo ma aragtaa dhammaadka suuratul kahfi lagu sheegay saddexdaas arrin ay weydiiyeen waa ruuxda nooga waran niman dhalinyaro hadda ka hor la waayo nooga waran waxaad kaloo nooga warantaa maxay heetoole dul qarnayn ninkaasayto oo ma aragtaa min mashriq ilaa maqrib dunidoo dhan soo marayna nooga waran sidaas arrin ay weydiiyeen kufaar quraysh nabiga markaas sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxaad igu soo laabateen berri baan idin waramayaa asagoo nabiga sallallahu alayhi wasallam sugay in ilaah raxmaanka uu uga warami doono oo ficlan ilaahay wuu uga waramay marka dambe walow marka hore nabiga sallallahu alayhi wasallam la dhaho wuxuu ilaaway inuu dhaho insha Allah sababtaas darteedna waxay qaadatay inuu waxyi imaado muddo 15 maalin ah 15 cisho kadib baa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyi ma aragtaa arrintaas looga waramayo Allah raxmaankaas uu dejiyay iyo suuradan caanka ay maalin walba jimcaan aqrino suuratul kahfi oo saddexdaas qis ilaahay si faahfaahsan uga waramay taasoo lagu radinayay reer Quraysheed ma aragtaa iyo walibana yuhuudi ay ka soo walwaasheen arrintaas oo ma aragtaa soo siisay fikradaas ah in nabiga sallallahu alayhi wasallam weydiiyaan saddexdaas su'aalood marka arrinta waxaan ka wataa waxay tahay saddexda qisan ma aragtaa waa saddex qiso macruuf ah suuradaas ku jiraan cidii aan garanaynin ma garanayso oo ma aragtaa waxay ma aragtaa ka baran doonaan insha Allah tafsiirka suuratul kahfi sheekh majri ilaa suuradaas hadii uu tafsiiriyo uu ka warama ma aragtaa sabab nusulkeeda oo ah saddexdaas qiso aan soo sheegay marka ani muhiimadeeda ma hayna saddexda qisadan kaga warama laakiin aniga muhiimada arrinta u soo qaato waxay tahay in ma aragtaa insha Allah oo ma aragtaa ilaahayna aayadu ma aragtaa aayado kamid ah laba aayad isku xigto oo suuratul kahfi ku jiro oo Allah raxmaanka ku sheegay ma aragtaa insha Allah fadliga leedahay sababta loo dhahayo marka saal ajligeed ma aragtaa ani u soo qaatay qisadan nabiga ilmaamid oo insha Allah ilmaamay daraadeed inuu waxiga ma aragtaa 15 cisho uu kaga maqnaa
marka maxay toole waataasa marka qisada aan rabay inaan idinla wadaago asxaabta aan jeclahay insha Allah waxaa way arrin mar walba nala gudboon inaan dhahno ku dadaala insha Allah marka mar walba insha Allah dhahdeen inkastoo hadda la dhahabo maxay toole dadka insha Allah markay dhahaan macnaheeda waxay u dhigantaa dadka qaar ma ahan dadka dhan laakiin dadka qaar ba marka insha Allah ku leeyihiin waxay ka wadaan arintaas ma sameyn doono camal macnaheeda hase culimada qaar dhahaan laakiin insha Allah marka tiraahdo waxaa kula gudboon waxay tahay inaa wixii adiga inta awoodaada ay kala timaadid wixii awood aweysidni ma aragtaa hadda cidnaba looma haysto ilaahay waxaan awoodin nugmaba ma aragtaa adoonsanayso maahan laakiin insha Allah waa inaadan si cagsigeeda u adeegsan oo aadan ka wadin insha Allah sameyn doono camal marka insha Allah taasna iga baraarujin aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada aad fiidiyogan daawateen جزاكم الله خيرا جميعا إن شاء الله فيديو إن شاء الله أنتم كل من نوحي ذكرت يا وحيدة سلامة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.